rag cadaalad waayay sidii cawshi kala yaaca Somaliland ya dhalinyarada caytamaya mid baa leeyahay dhalinyarada markaad idinku commentiyada ku caytamaysaa waxaan u maleynayaa dulmi ma hatiin afna waa daaci mukhtarow ninkaagii aan khuruuja ku ogaa xalay baan daawaday adigoo ummadiiba duqaynaya oo qabyaalada ugu baaqaya oo waxa loo jeedinaya been iyo bahabaha igu magarasa fiyus sidaad muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtay daawade waa daaci mukhtaar oo sheegay in uu qoriga qaatay uuna dagaalamayo dagaal uu diyaar u yahay fadlan nagu soo biro asxaabteena ka mid noqo adoo janaalka subscribe dhahanayo gambaleelkan u furanayo muuqaalkan like la dhacayo daaci mukhtaar oo lagu ogaa in uu dadka u wacdin jiray badanaane dad badan ay ku ogaayeen diinta iyo wacdi laakiin mar dhow dagaaladii hadda Somaliland ka socday iyo buuqa iyo arbushka iyo wixii ka jiray ayaa daaci mukhtaar wuxuu sheegay in uu qoriga qaatay haddana uu dagaal diyaar u yahay dad badan oo social media caan ka isticmaala ayaa waxay ku sheegeen in daaci mukhtaar uu hadda dagaal diyaar u yahay uu qoriga qaatay si ay diintu uu maanta diinta u difaacaya iyo dadka Soomaaliyeed dhibaatada dhankaas Somaliland ka jirto darteeda uu qori u qaatay daaci mukhtaar oo hadda muuqaalkiisa aad social media u gilgilay dad badan social media asxaabta kamid ah ay muuqaalkiisa soo qaateen qaarkoodna ay dhaheen wadaadkii wacdin jiray maxaa ku kasbay in uu qori qaato iyo in uu u dagaalamo ma siyaasad baa u dagaalamaya mise waa dagaal oo dagaal ah ayuu u wataa daaci mukhtaar oo hadda sheegay in uu dagaalkiisa aad u dagaalami doono uu qorigana qaatay baraha bulshada muuqaalka ugu horeeyay markuu soo geliyay daaci mukhtaar oo darees tuuta ku labisan oo qori ah ka wato ayay falcelin aad u badan dhankaasi social media aad u dhalisay dad badanna siday ku ogaayeen daaci mukhtaar dadka ayuu u wacdin jiray qaarkoodna dadka ayuu diinta fahansiin jiray iyo TikTok barar badan live-ka diinta uu ku wanaajin jiray laakiin hadda ay noqotay arinta dagaal iyo in uu daaci mukhtaar qori qaato uu sheegay afkiisa ka sheegay qori inuu qaatay uu dagaalamayo uu haddana dagaal diyaar u yahay arintaasina social media ay hadda aad u gilgishay maadaama daaci mukhtaar weligiisana lagu ogeyn in uu dagaalamo ama dagaal iyo waxaasna uusan asiga gali jirin uu kaliya wacdin jiray barta social media lagu bartay in uu dadka ugu wanaagsan uu dhankooda ku jiro oo wacdi kaliya lagu ogaa laakiin arinta oo aad u kululaatay dadka qaarna ay social media u dhinac dhigeen in uu qabiil iyo arin dagaal inuu galayo ay daaci mukhtaarka aysan ayaga yaqaaneen uusan qofkan ahayn laakiin dagaalka oo aad u kulul ayaa daaci mukhtaar muuqaalkiisa aad u gilgilay muuqaalkiisa ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawow daawade asigoo sheegaya daaci mukhtaar sababtuu qoriga u qaatay iyo waxa ku qasbay in uu qori qaato uu dagaalamo soo dhawow daawade rag cadaalad waayay sidii cawshi kala yaaca Somaliland ya dhalinyarada caytamaya mid baa leeyahay dhalinyarada markaad idinku commentiyada ku caytamaysaa waxaan u maleynayaa dulmi ma hatiin afna waa daaci mukhtarow ninkaagii aan khuruuja ku ogaa xalay baan daawaday adigoo ummadiiba duqaynaya oo qabyaalada ugu baaqaya oo waxa loo jeedinaya been iyo bahabaha igu magarasa fiyus ku raadi iyo igu sawir bay diintiiba ka noqotay midda محمد ونصلي على رسول الكريم الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلهي بقى محدث كله بعدين إن شاء الله بإذن الله تعالى